dhammaan meel walba joogtaan waa idin salaamay waxaan caawa halkan u soo galay laba qodob oo kala ah qodobka koowaad Facebook ayaan waxaan ka arkay ka dhageystay naag mursado ah oo Yurub joogto oo leh magaalada Xamar yaa iska leh wiil baa dhahay yaa iska leh magaalada Xamar waxay ku jawaabtay horta hadal sax ah ma qaldana gabadhaas ma qaldano horta magaalada Xamar hadii run la rabo magaalada Xamar runteeda hadii la rabo deegaanka dad baa iska leh dadka iska lehna waa Abgaal Cismaan waliba wacbuudan Abgaal waliba galmaax Yoonis waliba Cumar galmaax oo waa reer Mataan iyo Celi waxay degaan magaalada Muqdisho Mataan iyo Celi gobolka Banaadir hadii la yiraahdo waxa la degan Daawud iyo Cabdulla galmaax Daawud wuxuu degan yahay Garsbaalley xaafadahoodii goofku u ahaa waa Madiino iyo Maanabooliyo marka magaalada dadkii u dhashay waa la garanaa waa wacbuudan Abgaal harti Abgaal uma dhalan waceeslan uma dhalan dadkoodii yaa degan walaalahood baa degan laakiin umay dhalan hadii run loo hadlo waxa degan gobolka Banaadir wacbuudan Abgaal gobolka Banaadirna ma kala dheero Xamar iyo Xamardaye Xamar waa Muqdisho Xamardayana waa gobolka Banaadir hadii run loo hadlo waxa deganaa magaalada Xamar cid la yiraahdo Mataan Cabdulle kadib waxay ku soo dhaweeyeen reer Xamarka cadcad oo doomiye ay ku guurayeen ay uga jabtay Xamarweyne iyo Shangaani waxa degay reer Xamarka cadcad waxa ku soo dhaweeyay Mataan Cabdulle waa Shaanshi Duruqbo Bandhabow Moorshe Qalmashumato reer Muuqmi reer Sheekh Muumin reer Fiqi waxa soo dhan oo reer Xamarka cadcad la yiraahdo waxay degan yihiin Xamarweyne iyo Shangaani Abgaalka waxay deganaayeen Shibis Boondheere iyo Wardhiigley ayaga iyo Mursade inta aan xurnimada la qaadan Xamar waxay ahayd 7 xaafadood kaliya Soomaaliya dhageysta 7 xaafadood dhul walba ninkii u dhashay ayaa yaqaano ka ab waa la isku sheegaa cidii u dhalatay ma kastay Xamar waxa ahayd 7 xaafadood Xamarweyne Shangaani iyo Xamar Jajab waxa deganaa reer Xamarka cadcad iyo Jareerweyne Boondheere Shibis Wardhiigley waxa deganaa Mataan Cabdulle iyo waxa deganaa wacbuudan Abgaal iyo Mursade Boondheere Wardhiigley iyo Shibis Maanabooliyo kadib waxa soo degay dadka luumaysato ah oo bari ka yimid oo reer bari la yiraahdo xaafada la yiraahdo Kaamba Amxaara Cabdicasiis waa Siwaqroon dad la yiraahdo Cali Saleebaan iyo Cismaan Maxamuud taas ogaada Soomaaliya inta xurnimada la qaadan Xamar intaas deganeed Xamarna waxa u dhashay wacbuudan Abgaal gobolka Banaadir magaalada Muqdisho Celi iyo Mataan Soomaaliya indhaha kala fura gabadhii mursado oo xalay ka hadlaysay Facebooka been ma aysan sheegin mursado Mataan Cabdulla ku soo dhaweeyay Xamar ayagoo gobolada dhexe ka yimid deegaan bay meesha ku yeesheen waa degan yihiin wacbuudan iyo ayaga wacbuudan Abgaal iyo mursado waa wiil iyo abtigiis habar gidir dhalasho ahaan hadii la yiraahdo Abgaal habar gidir ay xigto laakiin habar gidir isku dhaqan ma nihin isku deegaan ma nihin
soomaalida kale ula mid tahay xamar habar gidir soomaali dhagaha kala fura xamar waa la isku heeseystaa dadka ku heestana umay dhalan habar gidir uma dhalan xamar waxaan xasuustaa oo la ii sheegay yaa habar gidir qolada ceerka la yiraahdo inay 1985 ay soo degeen xaafadda gaaraan meesha u dambayso oo kawaanka xoolaha lagu qalaayo ku yaallo ayaa la soo dejiyey 1985 ayagoo qaxooti ah marka dadkan ceerka la leeyahay ee magaalada qasay ee magaalada dadka u sheeganaya ee dadkii ku dhashay magaalada aysan ku noolaan karin ha naga fariistaan habar gidirta kale waa lala xaltami karaa sacad waa dad wax bartay waa dad wadaada leh waa dad diintu celiso waa dad wax garad sacad saleebaan sidoo kale dagaalna way yaqaanaan nabadna way yaqaanaan sacadii saleebaan saruurna waaba dad iska wadaada oo weligood dhibkoodii qayladooda la maqlin laakiin dadka la leeyahay ceyr war naga fariista magaalada xamar 1985 kiyaa timideen suuqa muxuu ahay tad xamar weyne ayaad waxaad ku gedi jirteen liimo bambeelmada isbarmuutada cambaha iyo babayga war waan idin naqaanaa ceerow magaalada ka fariista cabdiraxmaan cabdishakuur dowladdaa haysato asii dowladda markay kala baxaan baa la hadlaayaa hawiyana waa dhooban yahay abgaalaa soo damiintay iyo xawaadle waa joogaan hadday wax ku caddaadaanne dowladdii asay u taallaa hadday ay maaragtay ay dembi lagu waayane dowladda xaal mariskaas laga rabaa ninkii laga shaki waa la xiraa xasan cali khayre waxba yaa la eedayn xamar cid ka xigta ma laha hawiye curadkiisi waaye xasan cali khayre marka labaadna mursado curad u yahay laba jeero xasan cali khayre curad yahay haddaad ogtihiin iyo haddii kale habar gidirey dhulka fariista waa isqaban kartiin habar gidir dhib ma lihidiin waxa waaye dhibkiina waa ceyr sacadna waa dad fiican saleebaanna waa dad fiican saruurna waaba dad iska wanaagsanoo weligoodba wadaada ahaa ma fahantay marka ceyr ha naga fariistaan magaalada xamar dad baa marti ku waryaa yaa marti khayre ka awow xamar ku dhashay farmaajo aabihiisa asoo yar yimid farmaajo waxay ugu baxda talyaanigu la shaqayn jiray waa fahanteena umaleynaa asagana wuu ku dhashay xamar uu ku dhashay isbitaal martiini ku dhashay anoo awowgay saddexaad xamar ku dhashay ayuu ila mid yahay isbitaal martiini ku dhashay soomaalida xamar joogto xagay ku dhalan jireen ama isbitaal martiini ama banaadir marka habar gidir lugaha dhulka dhiga habar gidir hawiye madaxiisaad ku daaqaysiin xamar abgaal madaxiisaa ku daaqaysiin iyo mursada laangaab waa bal isku tirsada intou deegaano mursado degaa intou deegaano abgaal degaa meeshaa gatiin sheega ceer waxa dhan aad dhibaatada u wadiin waxaa waaye guryihii soomaalida beerihii reer xamarka iyo biyomaalka deganaa afgooya ilaa iyo marka caddeey ayaad haysatiin hadda ka hor waxaad disheen habar indhoolaa oo ilmo agoona haysato oo biyomaal marka ceer naga fariista gabdhaheeniyaa 27 years intay dagaal ku guursadeen dagaal ku ilmo dhalay dagaal ayeeyo ku noqon rabo marka annaga ceer ma u taagnaanaynaa weligeen 28 sano 2018 dhashay ceer caga juglayska dhaafa haddii kale wallaahi oo bilaahi oo tallaahi soomaaliya oo dhan isugu keentagayso abgaal dhulki waa ugu ciyaarteen magaciyaa ugu ciyaarteen abgaalna istiil idinlama hadlaayo waxna idinkama qabanaayo ceer dhuusada aawadiin daaya dhuusada aawadiin haddaad dhuusada jooji weysiin waa la iska kiin dhicinaa bal farmaajiya khayre bal mursadii ceer ha la isku daayo waa la isku fiirsanaa wallaahi shalay hawiye abgaalay isugu tageen abgaal aan xamar ka tirtirno oo sheeganaya abgaal aan tirtirno maanta wallaahi bilaahi ceeraa la isugu tagaa hadday hawiye ceer isugu tegin ee tii lagu sameeyey 1991 aan ceer lagu samaynin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi nolol ma taalo ceer waa la iska kiin celinaa waxba facebookyada soo gelinina waxba miidiyaha soo istaaginina arrintii cabdi qaybdiidna adinkaa ka dambeeya cabdi qaybdiid waa nin sacda waa nin reer hilowla waa nin abtigeeya waa nin sharciga yaqaano waa nin aqoon leh cabdi qaybdiid khasaaradaas iyo shirqoolkaas oo dhanna ceeraa wadi cid kale ma wadin cabdi qaybdiid madaxtooyada joogay farmaajiyi khayr la joogay markii gurigiisa la soo dhacay waxaas
ceera ka dambeeyo oo isdhaheen cabdi qaybdiid haddii la dilo yaa habar gidiraa wada kacayso abgaalaa kacaayo hawiyaa kacaayo ma jirto sheekadaas ceerow waa idinku qabowda taas waa idinku qaraxday cabdi qaybdiid hadduu dhiman lahaane adinkaa godka ugu jiri lahaay waa fahanteen adinkaa ka dambeeyo xasan cali khayraa usoo diray farmaaja usoo diray madaxtooyaduba la jooga si usoo diraa see nin kula jooga aad gurigiisa dad ugu dire oo hala soo dila aa u dhehe war yaa ceer faataa dhugta dhaafa dadkiinaan ceer waana wareeriseen war yaa gabdhihii hawiye yaa dagaal dhexdiisay ku guursadeen dagaal dhexdiisay ku ilmo dhaleen dagaal dhexdiisay ayeeyo ku noqon rabaan nolol maa noo taallo wixii dhiig lahow oo xamar jooga kaca idin dhahay kaca iska qabta ceer soomaalida muqdisho joogto waxaan ugu hambalyaynayaa inay cadowgooda iska qabtaan iska qabta ceeraa idinku dhex jira cid kale oo cadow ahoo maanta soomaali ku dhex jirta male ishii yaroo furanto inay xiraanay jecel yihiin intaasna waxay u yeelayaan guryihii reer xamarka cadcadaay shaanshiye guryaha ay deganaayeen xamar weyne iyo shingaani iyo xamar jajab yaa ayay ka qaateen reer xamarkii iyo jareer weynihii deganaa guryahaas yaa laydinkaga daba imaan beerihii yaa laydinkaga daba imaan yaa dhoobeyda waxaa noogala dilay 10 nin oo dhoobeyda yaa idin dejiye ceerow yaa idin dejiye dhoobeyda koonfur maa taqaaneen dadkii babaagii cambaha markay cunaan yaa soo kariyey xaggee lagu kariyey dhahayaa tiine ceer dabada dhulka dhiga haddaa faa'iido leedihiin raggiinna aqoonta lahaa adinkaa iska dilay ceerow baa idinkugu dambeeyey oo nin wadaadoo diinta yaqaana ah adinkaana dilay oo ka dambayseen oo lacag ku iibsaday ma fahanti nooga daayo magaalada xamar dhibka dadka kaliya oo maanta yaa idinnaas nuujinayo waa abgaal cismaan wallaahi murunsaday inuu idin daahaynin xasan cali khayrane halhaluu idin qabanaa halhal waryaa xasan cali khayre 48 years old waay maalintii maxamed siyaad ou qabtay ou dhashay ma fahantay 21 sano xamar ku gaaray wuu og yahay dhibaatada meeshay ka timid uu og yahay dhibkii xamar ku dhac uu og yahay dhibkii hawiye ku dhac uu og yahay waryaa wuu xamaalanaa dhulkiisana wuu u shaqaynaa galmuduguu degaa khayre faraciisa meeshay ka yimideen galmudugna waa degaan gobolka banaadir waa degaan wacbuudhan abgaalay isla degaana isdhalaan kaalinta koobaad waa mataan cabdulle kaalinta labaadna waa mursade kaalinta saddexaadna waa reer xamarka cadcad dadka dhahaayo abgaal baa gadaalka gaara cawskii qaryahay keeni jireen muxuu ahay dadka soomaalida miyi iyo magaalo leeyahay reer miyi iyo reer magaalo xamardayaha la sheegaayana waa gobolka banaadir leh meel dheer ma aha gobolka banaadir caanaha iyo qoryaha iyo aan ka keeni jirnay iyo cawska magaalada muqdishona waa deganayn yaa wax qaadi karo soomaalida hadlayso gabadhi mursada markay hadalka dhamayso nin baa hadlay askari baan ahaa aniga waxaan u dhashay nin daarooda daa u dhalato 1 iyo 2 ma gobolka banaadir wax ku leedahay soomaaliya ula siman tahay maya abgaal baa kaalinta saddexaad ahaa abgaal suu kaalinta saddexaad ku ahaa wacbuudhan abgaal magaalada muqdisho gobolka banaadir dadkii reer xamar ku soo dhaweeyay oo mursada walaalkood ku soo dhaweeyay oo reer barigii kaamba amxaara deganaa ku soo dhaweeyay wacbuudhan abgaali waryaa xamar iyo xamarday wacbuudhan abgaalaa deganaa iyo mursade waana wiil iyo abtigiis yaa maanta wixii khayro ku dhaco iyo dhibki khayro gaaro hawiye u dhan wada gaaray waa curadkii hawiye waa curadkii mursade maceero waxaa ka qaadi kartiin soo sheeg waxaa ka qaadi kartiin waad baxaysiin wadankii aa lacag ku iibsanaysiin carabaha tegeenis imaaraadka war haddii qadar lala jiro iyo haddii sacuudi lala jiro ma carab baa carab kuu dhaamo waa kii kusoo tarxiilaya adoo dhibaataysanay marka ceyr dabada dhulka dhiga dabada haddaad dabada dhulka dhigi weysiin yaa hawiya isugu kiintagaay ama soomaali oo dhanaa isugu kiintagayso xamaraa qarxinaysiin gabar hawiyaa dhimanayso wiil hawiyaa dhimanaayo wiil reer xamaraa dhimanaayo wiil jareeraa dhimanaayo wiil soomaalida kalaa dhimanaayo waryaa yaa dilaysiin haddaa farmaajo u daleedihiin aada gadii garbahaarey aada ama balanbadii cabudwaaq aada qarxiya laakiin xamaraa qarxiseen waxaad disheen 200 oo qof oo hiraaba mursadaa
كدبنا وحلادين الشباب وحقرحي الشباب لمبر 1 أذنكا سو اسكم سو أبوري أذنكو سو اسكمي إن عديو أها حسن داير أواسيو أها كل فن عند جيل وعير الشبابنا أذنكا حكمه أذنكانا قصي مقالة والمقالة نوغ الداي والسقطة أبقى الواد عيبايسين 1991 أياد واحد جلسين قبيل هوية اللي يراد ود محمد سياد بري أو أمديس أفعنا أو ددكيس جعلا الله أنا حريستو محمد سياد بري أد قدرتين محمد سياد برنا هرو الشيغي وعير أبقال هدوس كإلهين حمر مباب إلهين أبقال عثمان أذكر وحان إذين شيغايا قبليني يا كل ماناي أو قبليني يا كجور بيري أو رجي كذا ماضي إسكا قبت نمكا عيرك اللي ليه هبر قدرتين لا دشين هدي قبل ويان أو أذينك قبل ويسو دقالها لقو قاضو أبقال اسمع أنت سيدين شيغا وحدين مهارين لبعتن يتدبر سنة ماذا حليدي كجتاعي مقال ذينا لقصايا إيش يرى ما أنت مقدشة أفورنتنا وحي إسكو دايا عير إني أوضان من أوذي كران مركنين أبقال لوايو أياد ماركتي أد أوذيسين أبقال مرهرو يري سنقاني الليلة شيغا ما شانيبا هايقا هارتي يا أرغاس هايلوبنا حمر وين يشنقاني يا حمر جدب واكب بحيسين دوبيدين واتك قوريسين أنا نقول الدولة دوبيد نقول بابي يا دوبيد إذن درصد ما أذنك أسكاله ما عيرا دقو قال مذوقا كإما دينا ما بيرا تقينين وريا عيرو أمان نسية والله أو بالله أو تالله أبقال أيا الناس نوجين كوهاي هابر قدر هدا أبقال دافو ويسين ناس نوجين تهابر قدر كويسين أذنك كو عيبو باي أذنك أنا كو باباي قبلين كو قور وينيسا أو رقنا كتم هذا أبقال كاها أو قرسل لها أو المديرة دودها ناقول بأسايا قادي ناقول بأغاني كرسي ما فهمتي معا نوهر هدا أبقال عسمانا سيغ أبقالو قبلين أغاني هايان ويلشين وات لماذين يا قبر والبليح عنوك تضبع عنوك أغاني هايسا والرقيا أنا قد ماضي المية ماضي أقول رفات قاجو ورني من كينا أبقى للي أقل إسكويرا ولا الكادو قرقا كحاراي ولا إسكفقيا ولا الكادو قرقا وسقينا كحاراي ولا إسكفقيا ولا إسكعليا إسكعلي أبقى العثمان إسكعليا برقدر ما أنت عبد الرحمن عبد الشكور واصوت ضمنينتين مدلولا أوكعي هراب با أوكعي حواضلا أوكعي حواضلا لفتركيس نبكي أوجيست إلها أوك يا لكن واحد سواد ماذين هذا دمي ويسين أنا قواد دمين هوي يدم واد دمي قف والبقى ما أنت مجي هوي شكت واد دمي وحص لكن عيرة ولي ودوضو والله وبالله وطلعه فرمادن أمدن لهدين قيرن أمدن لهدين واحد من أودل لهذين وحواي مقالة حمر يدقين لكن مقالة حمر يا وحي أطالع يقرأ الله هذا اللي من يقتجا مركب مقالة حمر وحي أطالع مرصدي أبقال وفرقة ككعة هدي قبلين أقول الغروري لهاي هدي قبلين إن من لقديني لهاي هدي ويلشين اللي يرضى أي بدو كل ما لهاين مرصدي أبقال أطالع إن السخابتين قبيل كعر اللي هي كل دعوة ولا له تشجع قبل أفريستا ولا له تشجع سعد السليمان يعير سعد السليمان يسرور عير لقلا معيرة قبل الله دكتور ولا يسكع لياي ولا يسكين علينا عير السلام عليكم سومالية وركي أنت سكو أجيهاي هدان عير ليسك قبننا نبض مي ما نيسو قيرة وحبت تصيب حبت نمك عير لليهاي ولا بفرد الله ياهي قرير الحمر كان مقن أنا قو واحد دقموين كان ها مركي حمر لسوء دوينايو محمد سياد أما فيستوين لقبو يا دقمة حمر وين دق على كسو بيجري يا محو دقمة سنقاني هذا نوع كسو بحاي دق سقبتيه أو عيرو وذا قبتيه وركبها قريها إسلامات إلهي متقانين وروحي قبل الله كيمد هذا كإمادين جوهر هذا كإمادين محو آيتود إن هيران هذا كإمادين قلمذو
oo xamar wada jooga waa wixii dadka guryahooda degay hal la ogaado Soomaaliyeey qabiilkan ceer ninkii waxada xataa wuu dhuntaa ninkii waxado wuu dhuntaa ceer asoo waxaday waliba si boobotayna ka war yaa laba jirka uga adkaateen war ammaan nasiya nooga baxa xamar waa la suuqiin tagaya idin dhaw la suuqiin tagaa ma fahantay magaalada xamarna Soomaaliya ku soo dhawaada waa mursadii wacbuudin abgaal cid kale number 1 wacbuudin abgaal number 2 mursade iyo wacbuudin abgaalna waxay soo dhaweeyeen reer xamarka cadcad markii afraadna waxa u yimid oo magaalada la soo degay yaa waxa la soo degay muxuu ahay reer bariga xaafadan ay lahaayeen oo maanta Soomaali kala degan tahay si waqroon Ali Saleeban Ismaan Maxamuud waa la yaqaanaa kaamba amxaaro ha laga baxo guriga islaamida ha laga baxo sida u dhaqsaha badan assalaamu calaykum